hore ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee Soomaaliland ahna afayeenka ciidamada booliiska gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi oo maanta telefishinka Ariel kula hadlayay hotel Damale magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xilka qaadista uu taliya ciidamada booliiska ee Soomaaliland Sarreeye Gaas Cabdilaahi Fadal Iimaan uu ku sameeyay isla markaana laga qaaday xilkii taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka xilka booliisku waa meerto in laga shakeeyo ma taliyaha ciidanka booliisku waa wanaagsan waa in ummadda u shaqeynaya waa nin karti badan uu ibedelay waxa la ibedelay taliska ciidanka booliiska ka maantiin daacad baan ahay waa u shaqeynaya dadka marka dadka waxa xumaanta la dhex wareegaya waxaan iska codsanayaa in wax ka qabataan in ciidanka booliiska lala shaqeeyo in nabadgelyada aad loo ilaaliyo dhinaca kalena afayeenka ciidamada booliiska ee Soomaaliland gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi waxa waxba kama jiraan uu ku tilmaamay warar lagu baahiyay baraha ay ku kulmaan bulshadu isagoona sheegay in aanu haba yaraatay aanu lahayn bartaasi waniyo anigu gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi waan ahay afayeenka taliyaha ciidanka booliiska ahay anigu wax alla waxaan Facebook ku leeyahay ma jirto magaca waa la been abuurtay waa been aan saliya raatan lahayn waa been aan saliya waxaan iska codsanayaa inaad Facebook-ga baabiisaan sababtoo ah ma qofka sharaftiisa iyo sumcadiisa meel laga dhaco ama ciidan ahaan ama sharaf ahaan ama shakhsi ahaan waa faldambiid qofkii waxa lagu qabtana waan dacweynaa maxkamadda horgeeyna hadii la ka dhigo laakiin boqol jeer dacwada waan ka gudbiyay inaad waxaas waa nala afood waxba kama jiraan anigu weligii ma samaysan Facebook akada mana lihi biligatay marka waxaan iska codsanayaa inaad u sheegtaan ummadda baraha bulshada ninka waxa ku soo qoraya waa been aan saliya raatan lahayn anigu ma lihi waana sumcadeeda ku ciyaaraya sumcadda booliiska doonaya ku ciyaaro Cabdiraxmaan Abdullaahi fantastic Ariel TV Hargeysa